marmarka qaar waa ay dhacdaa in wadaadadu isku qabsadaan aragti qolo walbana ay haysato mabda' gooni ah balse xad ma lahayn xilliyadii la soo dhaafay dagaalada wadaadada wuxuu ahaa mid cirka isku sii shareeraya waa mashquul qofka lagu mashquulay wey adigu marka maxaad u fahmi weyday adigii iga weynaa oo adigii dhali karay adigoo shaqadii iga horreeyey waxaa aniga ilaahay fahamsay adigu maxaad u fahmi weyday layaab malaan wax kastana waa macquul laakiin maxaa ka jira dagaalka u dhexeeya labada sheekh ee caanka ku ah magaca Sheekh Rusheeye ama xitaa dagaalka ka dhex qarxay wadaadada leh goobaha cilaajyada koorka hadalka sheekadan iyo soo bandhigida muuqaalo la yaab leh waxaan ku xasuusinaynaa inaad like sarto muuqaalkan si muuqaalku saaxiibo badan u gaaro una sheer garay asxaabtaada kale ee Facebook si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida adigoo kale wanda ku mahadsan tahay sidaad inoola jaanqaado haddii aadan ka waantoobin ama aadan khaladkaaga aadan qiran ama aadan raaligelin ka bixin waxaa ballan igu ah labada nin ee caanka ku ah magaca Sheekh Rusheeye ayaa isbuucan noqday hadalhaynta ugu weyn ee baraha bulshada waa maxay dagaalka weyn ee u dhexeeya wadaadada leh goobaha cilaajka qaas ahaan sida la tilmaamayo labada sheekh ee caanka ku ah magaca Sheekh Rusheeye sababta ka dambeysay in Rusheeye yara ugu dambeyn ka shafasiro badan oo la yaab leh iyo isweydiinta waxa ka run ah in Rusheeye yara uu yahay mid sixiroob ah maxaa kulmiyay qeeladhaanta labada Sheekh Rusheeye iyo ugu dambeyn Rusheeye yara oo fariin culus hawada u mariyay wadaadada isaga la mid ah waa subaxnimo sabti ah 13 taariikhda bisha labaad waxaa ballan ilaahay igu ah waxa adigu aad tiri ninka meesha waxa ku hayo waa indha sarcaad waa maaragtay beeri barbagaanto waxaan halka u fadhinaa inaynu fashilino Rusheeyaha weyn isbuucan waxa uu qabsaday baraha bulshada kadib markii la wareeyay in sanad walba uu guursado gabar aad daayar lana soo bandhigay sawir lagu soo qoray in sanadba sanadka ka dambeeya uu dooqa da'da gabdhaha uu guursanayo uu hoos u sii dhigo inkastoo markii dambe uu wadaadku beeniyay arrintaasi uuna tibaaxay in sawirrada la boonbooniyay ay yihiin kuwa keedkiisa laga xaday sirtana ay tahay in lagu leeyahay shaqadan cilaajka waa inaad isaga fadhiisataa dhanka kale tan iyo markii hadalhayntaasi ay soo baxday isla durbadiiba waxaa muuqaal soo duubay Rusheeye yare isagoo sheegay inuu dagaal kula jiro wadaaddo kale oo ku shaqaysta howsha uu isagu caanka ku yahay ee cilaajka kuwa isaga kaga horreeyay iyo kuwa ka dambeeyayba waxaana uu Rusheeye yare sheegay in hore uu ogaan jiray in wadaaddo kale ay u gafaan isaga kuna tilmaamaan shaqadiisa mid xun laakiin ay la yaab ku noqotay in wadaaddo isaga kala mid ah quraansaarka ay ku tilmaamaan sixiroole hajabaadna uu kala kulmay waxaana uu qeexay in jawaab cad uu ka bixin doono arrintaasi lama yaabayo ama la yaabi maayo qof ee wadaad ah ee qamiis wata camaamadii guufidna saartay ee annagana aflagaadaynaya la yaabi mahayee waxaan la yaabanahay ninka ee isaga dadka quraan saaraya ee aniga igu tilmaamaya inaan sixiroole xasriga inaan ahay indha sarcaad inaan ahay jin inaan ku shaqaysto inuu jin ila shaqeeyo ninka igu tilmaamaya isagana mikrofoonkiiga oo kale haysta ee ummadana dhahaya waa quraan saaraya ana haddaan sixiroole noqday jin la shaqaysta isaga muxuu la shaqaysanaya jaambaxar muu la shaqaysanaya sidoo kale inkastoo aan la hubin shakhsiga uu dagaalkaasi kala dhexeeyo haddana dadka qaar ayaa sheegaya in wakhtiga xasaasiga ah uu Rusheeye muuqaalka soo duubay ay tilmaam cad u tahay in dagaalka uu kula jiro shakhsiga ay magaca Rusheeye wadaagaan ay shaqadan isaga kaga sii horreeyay isagoo hawada u mariya shakhsiga inuu raaligelin ka bixiyo haddii aysan dhicinna uu isaga ahaan tallaabo cad qaadi doono waa subaxnimo sabti ah 13 taariikhda bisha labaad waxaa ballan ilaahay igu ah waxa adigu aad tiri ninka meesha waxa ku hayo waa indha sarcaad waa maaragtay beeri barbagaanto waxaan halka u fadhinaa inaynu fashilino waxaa ballan ilaahay igu ah haddii aadan khaladkaas iyo maaragtay hadalladaas ee lagaa soo duubay aadan raaligelin ka bixin ninka isaga ah ee maaragtay wadaadka halkaa jooga khalad baan ka sheegay ha iska kay cafiyo oo aadan weliba facebookyada iyo youtubeyada aadan ka soo hadleen waxaa ballan ilaahay igu ah 3 cod baan kaa hayaa 3 cod labana waxaa weeye waa dadka adiga kula shaqeeya ee aflagaadadii aflagaadeysmayaan midka saddexaadna waa adiga intaa haddaad ku cibro qaadan weydan waxaa weeye waxaan soo dhigi doonaa insha allahu tacaala fideogii adiga iyo aniga iyo ilaahay iyo dadkii markaa goobjooga ahaa hadday noqoto dadkii meesha lagu quraaminayey
iyo hadday noqoto dadkii markhaatiyaasha ahaa inaan soo bandhigaba ballan ilaahay u ah yeelkeeda ma ahan wax la yaab leh in laba shakhsi oo isku mihnad ku wada jira ay saaxada ku dagaalamaan balse sheekadu markay marayso wadaaddo suuqa ganacsiga ku wada dagaalamaya waxaa loo arkaa inay tahay arrin qariiba lama oga halka ay sheekadan ku dambayn doonto waanse sugnaa barnaamijka dagaalka ku salaysan xirfad aqoon ganacsi iyo shakhsiyadba leh ee u dhexeeya wadaadada cilaajka oo markan iyaguna dagaalka uu ka dhex qarxo adiga sidee ayaad u aragtaa hadalka sheekh Rusheeye Yare macquul ma tahay in waxyaabaha laga sheegayo ee ah inuu sixiroole yahay ay tahay wax sax ah mise rumaysan tahay inuu xaqiiqada ka hadlay wadaadkan da'da yar oo ay qalad tahay in lagu tilmaamo wax uusan isagu jeclaysan oo uusan ahayn aragtidaada ku soo qor qaybta hoose ee kommentiga haddii ilaa ay dhammaadkaad nala joogtana waxaan ku xasuusinaynaa inay muhiim inoo tahay inaad muuqaalkan like saarto una share garayso asxaabtaada kale ee Facebook si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida adigoo kale waad ku mahadsan tahay sida aad inoola jaanqaado